maxaa ka soo kordhay wargaadhi gobolka shabeellada dhexe ma dhaba in al-shabaab ay qabsadeen waxaan kula wadaagayaa wararkii ugu dambeeyay cidda hadda gacanta ku sugan iyo dagaalka wuxuu ku soo dhamaaday waxaan xog ku helnay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ay dib u qabsadeen magaalada la yiraahdo wargaadhi ee gobolka shabeellada dhexe oo ahayd taliska labaad ee ugu weyn xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku yaala gobolka shabeellada dhexe iyo deegaanada maamul goboleedka Hirshabeelle iyo Galmudug laga hagay halkaas saaka aroortii hore dagaalamayaasha kooxda al-shabaab ayaa weerar ku soo qaaday muddo kooban ayay gacanta ku dhigeen waxaan xog ku helnay inay gubeen qayb ka mid ah garoonkii diyaaradaha ee magaalada iyo soo kala saldhigii laakiin dagaal rogaal celin ah oo dib u soo qaadeen ciidanka dawladda oo dhowr jiha ah waxa uu sababay in kooxdii si kooban dib looga saaro magaaladaas iyadoo ay jirto dhimasho iyo dhaawac badan oo labada dhinacba soo gaaray wargaadhi hore u sharaxnay waa dhul deex ah oo aagga badda ku yaala cadala degmada la yiraahdo ee gobolka shabeellada dhexe ayay hoos imaan jirtay laakiin hadda meesha loo magacaabo degmada ee la yiraahdo cali gudud ayay ka tirsanayd istiraatiiji weeye oo meel istiraatiiji ah ciidanka dawladda ee gorgor iyo kuwa danab iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ciidamo isugu jira ayaa ku sugnaa iyo ciidamo kuwa deegaanka ah magaalada al-shabaab haddii ay gacanta ku sii hayn lahayn waxaa go'doon geli lahaa magaalooyin kale oo ay ka mid tahay nuur dugle cadcadiya cadaan lexi masagawaaye ceeldheer iyo goobo kale ayaa go'doon geli lahaa isku socodka dhulka deexda ahna meeshaas ayuu ku dhammaan lahaa al-shabaab wargaadhi inay qabsadaan oo keliya muhiim uma ahayn ee sidoo kale waxaa muhiim u ahayd oo ay raadinayeen gaadiidka ee lacagta baadda ah oo canshuurta ku sheegaan ay ka qaadi jireen oo cali gudud laga soo leexiyey oo deexda mari jiray oo kuwa u socda gobolada dhexe ee Soomaaliya gaadiidkaas ayay baahi weyn u qabeen si ay lacag uga sameeyaan maadaama cali gudud ay go'doon gashay gaadiid gelin ganacsi ka jirin halkaasina ay ku dhibtoodeen sidoo kale waxa ujeedadu ahayd inay go'doon geliyaan ciidanka dawladda ee ku sugnaa ceeldheer iyo galgaduud dhulkeeda iyo sidoo kale kuwa kale intuu aan soo sheegnay ee nuur dugle ciidamo beeleed ku sugan iyo cadcadiya cadaan lexi ciidamada ku sugan intaasoo dhan ba rajadii maanta waa soo dhamaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa ay difaacday magaaladaas inkastoo daqiiqado kooban laga qabsaday oo qaybo ka mid ah magaalada dhulkii muhiimka ahaa la gubay haddana hadda gacanta dawladda ayay ku jirtaa kooxdiina dib u gurasho ayay samaysay ama waa laga saaray magaaladii waxaa kaloo jira in magaaladaas ciidanka jooga ee danab la yiraahdo ay uga fududahay ciidamada kale inay duqeymo helaan oo way wararku waxay tilmaamayaan hadda in meelaha qaar duqeymo dhacayaan oo kooxda la sii duqeynayo gaadiid dagaal ayay ku soo weerareen oo sugug ah oo gaadiidka kale ee loo yaqaan cabdibiliyaasha oo dhashiika ku xiray ah iyo gaadiid kale intood oo nooca dagaalka ay kooxda wateen taasoo muujinaysa in cabsi la'aan ahay in la duqeeyo aysan ka baqaynin laakiin lama oga dawladda waxay leedahay waxa amarnay diyaaradihii maadaama Mareykan ciidan uu tababaray ilaashada halkaas ay joogeen waa suurtagal al-shabaab markii ay gubayeen wargaadhi waxa ay ogaayeen inaysan haysan karin sababtoo ah dhulka kaynta ah oo juqaha leh ay badanaa kooxdu haysan kartaa ay sii joogi kartaa dhulka deexda ah ee bannaan waa meelaha ay adag tahay inay joogaan maadaama ay duqeymo ka baqayaan iyo hoobiyaal lagu soo tuuro ay ka baqayaan oo aysan ayagu waashi haysanin meel laga gabaasadana aysan jirin inay deex tahay waxaa usii dheer waa dhul gawaan oo dhagax ah oo asagana aada u kulul laakiin hadda wararkii ugu dambeeyay waxay warinayaan in xaaladdu ay degan tahay ciidanka dawladdu ay magaaladii joogaan saacad kasta dagaal la filan karo shabaab daqiiqado kooban ay haysteen oo inta dagaalka u socda ah oo qayb ka mid ah magaalada ay soo galeen qaybna ay ciidanka dawladdu joogeen ugu dambeyntiina laga saaray wixii warar ay ku soo kordha waxaa idinkugu soo gudbi doonaa wararkeena barnaamijyada dambe haddii Allah u daleedmo aad u mahadsantahay adigana inaad la socotid wararka aad Soomaaliya aad ka heshid haddii aad nagu cusubtaan nagu soo bir si aan kula socodsiino guud ahaan wararka dalka Soomaaliya iyo dunida inteeda kale aad u mahadsantahay